صلى الله عليه وسلم ugu horeyn wasiirka wasaaradda howlaha guud gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha agaasima xidhiidhya howlwadeenada saxaafadda dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan maanta waxay tahay runtii maalin farxad ah maalimahan u jeclahay waxay ka mid tahay maalimaha shaqaalahayga intii aan u aragnay inay wanaagsan tahay ee shaqadooda ka soo baxday inaan u mahad celino runtii waa mas'uuliyadaha iyo waxyaabaha ugu quruxda badan ee jeclahay inaan ku raaxaysana waan u mahad celinayaa tobanka u horeeya shaqaalaha aan u aragnay hormoodka oo kulley dadku haddii shaqo lagu jiro dad wanaagsanna waa jirayaan dad yar ka hooseeyana waa jirayaan annagu wasaarad ahaan runtii shaqaalahayga weynaha dhammaantii waan u mahad celinayaa waxaan u arkaa shaqaalaha wasaaradaha ugu fiican inay yihiin xaqiiqatan way wasaaradda 4 sano aan joognay inta wax weeyaan wasaarad aan shaqaalaheedu lahayn aafooyinka ama masiibooyinka ka jira wadanka oo arki maysid cid qabiil ama qabyaalad ku wada socota dhammaantood waa dad walaalo ah dhammaantood waa dad saaxiib ah dhammaantood waa group intaas waxaan u arkaa inay tahay farxad iyo sharaf iyo wanaag ay u tahay shaqaalahayga iyagoo oo arkayso dad kala wada nooca oo isku mabda ah oo isku ujeedo u socda runtii waa waxyaabaha wasaarad ahaan mas'uuliyad ahaan aanu ku faraxsanahay inay dadku dhan u wada socdaan ay walaalayihiin marka xigta waxaan u mahad celinayaa tobankii u sareeyay oo runtii waxaad ogeydeen hore 5 bay ahayd horumarku meel kasta uu ka soconaya dhan uu kama soconayo inay maanta gaarsiino 10 qof oo runtii markii 5tii hore aynu siinay dadka hoos dhigtay dadaal badan bay sameeyeen dadkii waxaanu garan weynay shan aan xulano way dadkii oo dhan baa tartan galay oo shaqadii wanaajiyay 10 baan markaa ka dhignay insha Allah waxaan rajaynayaa marka dambana inaanu kala garan weyno shaqaalaha dhanba oo gabigoodaba aweed aan wada siin doono shaqaalaha waan idigu mahadnaqayaa wanaaga iyo dadaalka iyo runtii waxa badan iyo hawlaha saad u wadaan dhamaantii way idigu mahad celinayaa kulley waxaan ku soo gabagabanayaa yaanay noqon markii ugu dambeysay noqon mayso runtii dadaalka iyo halka aad wadaana ka sii wada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh